الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ودرسي أفرتني لحاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلوحان كسو جشني قصودي أمدولان كي لا أورانايي قصوة الأحد هدين يران دول مرنا وحان كسو هدالي قريش إنay soo urursatay iyada oo ka kooban 3,000 oo raggii dagaalyahanka ahaa ah. Waxaan ka soo hadalay muslimiintu inay ahaayeen tiradoodu markii ugu horeysay 1,000 inay ahaayeen. Munaafiqi weynaa Cabdullaahi ibn Ubay ibn Salool inuu la noqday 300 ay ku soo hareen 700. Waxaan ka soo hadalay rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu ciidankiisii uu dejiyay meel munaasib ah oo dagaalka ku fiican oo dhawarka ku qabtay buurtii weyneed ee Uhud, labada dhinacna inuu iska mariyay 2 buurood oo yaryar. buurtii la oranayay Jabal Rumah waa buurtii uu dhigay ciidankii kontonka ahaa, iyana bidixda ayay ka xigtay. Madiinu eegayay nabigu sallallahu alayhi wasallam. ciidankii Quraysh ayaa nabiga iyo Madiina u dhaxeeyay. Kadibna waxaan ka soo hadalay inay muslimiintu iyagu markii hore guusha yeesheen, kadibna markii khaladkii uu dhacay ee 40kii saxaabi ay ka soo dhaadhaceen buurtii rasuulku saaray, dabadeedna dhibaato weyn ay dhacday. Khalid ibn Walid inuu ciidankii dabarjabis uu ku sameeyay, inay meeshii dhibaato ballaaran ay ka dhacday. waa 40 saxaabi oo buurtii ka soo degay oo amarkii rasuulka khilaafay ayaa dhibaatadaas sababay. maantana malaayiin muslimiinta ka mid ah ayaa amarkii nabiga khilaaftay, iska diiday sunnadiisa. markaasaan leenahay nasrigii Ilaahay aaway. 40kaas saxaabi ee buurta ka soo degay ayaa dhibaatadaasi u dhacday oo ciidankii muslimiinta loo jabiyay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam loo dhaawacay. waxaan ka soo hadalay markii dagaalkii kululaaday oo rag badan oo asxaabtii waaweyneyd ka mida la laayay, waxna la dhaawacay. nabigana sallallahu alayhi wasallam dhaawac soo gaaray. waxaan ka soo hadalay nabigu markii dambe inuu ciidankiisii dib u saaray. intuu soo ururiyay ayuu nabigu buurtii saaray. waxyaalahaas ayaan ka soo hadalay. gaaladii waa dhaqaajiyeen. markay sii socdeen baa nabigu wuxuu ku yiri Cali, eeg, hadday Madiino ay u jeensadaan oo xagga Madiino ay doonaan inay galaan, waan ka daba tageynaa oo la dagaalameynaa si aan dumarkii iyo caruurtii Madiino u difaacno. Cali waa eegay, wuxuu arkay Madiino inay iska agmareen. Madiino way agmareen, Madiino ma aysan galin. wuu ka soo haray marka Cali. nabigu waa soo dhaadhacay, wuxuu bilaabay asxaabtii la laayay inuu soo ururiyo oo aaso. inaan la mayrin oo sidooda iyo dharkooda lagu aaso baa nabigu amray. waxaa qabriga lagu aasayay 2 qof baa isku aasayay ama 3 qof baa isku aasayay. ninka quraanka xifdisan xagga luxudka u horeysiiyay buu oran jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam. nabigu wuxuu arkay adeerkiis Xamsa bin Abdi Mudallib sida loo galay. dhagaha laga gooyay, sanka laga gooyay, caloosha la dilaaciyay. aad buu nabigu uga murugooday. muslimiinta 70 baa laga dilay. 65 ansaar bay ahaayeen, 4 muhaajiriintii bay ahaayeen, midna yahuud ayuu ka mid ahaa. gaaladana waxaa laga dilay sida saxiixa 37. kadibna nabiga iyo asxaabtiisii Madiino bay ku soo noqdeen. inta sano si joogo. Billahi tawfiiq.